ardayda qalin jabisay sanadkii shanaad mashruucan jiheeye u fadhida bahda waxbarashada bahda warbaahinta anoon ka tegin qof kasta hab maamuuskii uu lahaa ama magac ama mansab iyo sharaf wuxuu nagula joogayba waa ii farxad waana ii sharaf inaan maanta idinkala soo qayb galo xafladan hadafkeeda uu yahay jihaynta waxaan jeclaanahay inaan ku bilaabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maalin wanaagsan waxaan ka heshiinay saaxiibadii soo agaasimay munaasabadan in aan ka hadlo mowduuc kooban oo la dhaho ilbiriqsi waxaan jeclaanahay inaan ku bilaabo aayad qur'aan ah iyo hal xadiid weliba qaybtiis haddii ilaahay yidhaahdo kadibna kelmad iyo labo ilbiriqsi ah inaan ku daro insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay fi suurati alaxzaab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حديثنا سبحانه صلوات الله ربي وسلامه عليه قيب كم إذا حديث حكيري أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز بلوغ حديث كان واتقنان وإقبض لسان أواخر كيسان وإقبض لسان قبل لسان وإقبض لسان لكن ماشان أصعده محل كوا ماشان waxaad ogtihiin in si aad ku soo dhammayseenba raggii iyo gabadhii wanaagsanay hadda inta ka tegay doodahoodii baan rabaa inaan meesha ka sii bilaabo aanan wax cusub curinin ama primary-ga ka hor dugsiga hoose ka hor fasal iyo 2 iyo 3 asaasiyada oo dugsiga hoose ka horeeyay soo bilow oo dugsi hoose dhaxo 8 sano soo qaado 4 sano dugsira ku xiji 4 sano jaamacad imo ama sidii dadka qaarkiis ay soo yeeli jireen soo yeel waa xaqiiq in maanta jaamacad soo dhamaysay qalin jabisay rabtidna inta laga siiyo adduun noocee u socotaa suuq noocee u socotaa haday ahaan leedina wax sii baratid haday ahaan leedina shaqaysatid hadday ahaan lahayd inaad guursatid hadday ahaan lahayd inaad annaga dhaxal noo reebtid inaad riximka xiriirisid inaad jamhuuriyadda dadaalada ka socdaa qayb ka noqotid waa xaqiiq waa waxay ka bilaabanaysaa inaad hub iyo hu ka dhigatid qiyamkaaga dhaqanka suuban ee Soomaalida ee shariicada macaan ka soo jeeda oo ah in Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laga dhigto ku dayasho wanaagsan sha'ni kasta oo nabiga uu ku sugnaa sallallahu alayhi wasallam shuruudaha lagu xirayna adiga isku xirtid si gaarana saddexaas farrimood ay u qaadatid oo ah in wixii ku anfacaya ku dadaashid boqorkana subhanahu wa ta'ala allahoos gashid oo kaalmaysatid inaadan ka caajisin oo daba taagnaatid talooyin badan la bixiyay hortay markaan inta ka tagana talooyinkan waa la bixin doonaa tii waalidka iyo walaalkay saaxiibka wanaagsan ee khaaskana horena waa loo haystay haddana waa la haystaa waana la haysan doonaa haddii ilaah awood loo ogolaado laakiin fariinta ugu muhiimsan waxa waaye in ilbiriqsi kasta oo waqtigaaga uu xisaabsanaado laana markaa fiirisid ilbiriqsi kasta iyo daqiiqad kasta iyo saacad kasta iyo gelin kasta iyo maalin kasta iyo usbuuc kasta iyo bil kasta iyo sanad kasta iyo xilli kasta iyo waayo kasta iyo zaman kasta oo ku soo maraba waa mid ka tagay qabriga ku sii dhaweynaya haddaadan inta is xisaabininna xisaab lagaaga fadhiyo waxa ku qabatay ma raba inaan xumaanta baraha bulshada ay leedaan waqti ku bixiyo dhafarta in pizza la doonto oo liida iyo la aado faa'iido darrada ay leedahay in waqti ku dhumiyo ma rabo saaxiibka xun la joogiisa in waqti ku dhumiyo ma rabo laakiin haddana waan sheegay dibka ay leeyihiin uma baahna inaan ka sii sheekeen uma baahna dhallinyaranimada iyo caafimaadka iyo firaaqada wax la helo ma aha
diintana hadday qur'aan tahay hadday xadiid tahay hadday fiqi tahay siirada xataa luqadda marka la baranayo marka la fiiriyo taariikhda islaamka taariikhda fakarka islaamiga ah waa lagu soo celceliyey aadaa lagu soo celceliyey hadda dood qarniga 21aad waxay maraysaa doodda inaan maaraynta waqtiga laga fakarina in maskaxda maaraynteeda laga fakaro oo time management meesha la dhihi lahaa mind iyo mindset management in hadda laga hadlayo in madaxii la maareeyo qofka inuu asagu iswado in la maareeyo waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo kelmadayda آيات قرآن أو سورة آل عمران كجرت بقول كنتني استقالوا إلهي أولي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين maantay taagan tahayna elbiriqsi kasta oo waqtigaaga aziima la yaqaan ka gaartid ilaahina alla hoos gashid subhanahu wa ta'ala oo qofku uu noqdo sidii nabiga loo yiri naxariista rabbi darteed baad hayn ku noqotay qof busta ah oo ladiidina oo qabsooma wixii raba laga sameeysta noqdo naxariista rabbi darteed subhanahu hadda aan lahayd la yiri qof akhlaaq daran oo qalbi adag dadku ay ka kala dareeri lahayn adoo xabiibkii nabiga sallallahu alayhi wasallam qof kula ma joogeen laakiin maxaa lagu la joogaa ina hayn tahay waa koow ina qowlsan tahayna waa labo ina qalbisan tahayna waa saddex saddexaas marka la sameeyo maxaa ku xiga afar qodob oo kale oo saddex kale ay jamac tahay midna uu mufrad adiga kugu yahay laakiin meel la aaday sare ila rafiiq al-a'la subhanahu qodob koowaad maxaa waa Soomaalida maxay dhihi jirtay banaankiisa maradiisa geed ma qabsata hadda highway-gaas Makka al-Mukarrama oo highway ahayn oo iska luuq ah laftigiisa hadda marti 10 geeda ku soo raadsanayso ku qabsanayso jidka caadiga hadda iska marti 10 geeda ku qabsanayso hatta meesha ku oolin meel ka yimaadeen aadan aqoonin waxa la rabaa dadka in la saamaxo qof aan wax ku yeelin mu Ilaahay dhihi la dadka saamaxa dadan wax ku yeelin inay ku yeeli doonaan oo boqorka og yahay on sidaas lagu daynaynin dadka hal la saamaxo intaas uga harina marka hameenkii toostidii markastood amal wanaagsan sameeysin Ilaahay dambi dhaaf u weydiiy asagan inuu saamaxo sii daayo ha uga harina talada gali oo mushaawara la samee laakiin markay aziima gaarto afintii waxa la yiri fa'fu anhum wa jama' dadka carabiga aad u yaqaan jaacad al-muqdishana kuma sii jirto wastaghfir lahum wa jama' wa shaawirhum fil amrina wa jama' laakiin aziima margay gaarto adiga iska leh hooy aaba la tashay soo galayaan qofka nolosha ay wadaagtaan la tashi buu soo galayaa ilmaha curadka talada kula la tashi buu soo galayaa aziimada waa kaliya fa idha azamta tumma fa idha azamta بشرط واحد فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعن ربط يروي إن إلهي سبحانه وتعالى لغياب حال الربا مرك إلهي لغبقى فرض العين يكو اكتهي إن إلهي لغياب لكن فرض الكفاية قدر سميسة شنتي تيرو إسلام قال إسكربا على قدر داقتكم لحدي إيمان قال إسكربا ركن الإحسان على إسكربا لبي طبعا كاس قضب وحصدحي طبعا كنا قنايا وترة ركن كلو اجتهاد ليره هذا طبرت هذا أضار دحد حيسنا مع الإخلاص لبي طبعا كاس وحكي قبل كرتيد وحي الإسكرة بي شردي وحليره هذا ما هنا ما بلود دوان كره لكن وحي الإسفرة وحليري فاتقوا الله ما استطعتم انت أودان هنا سنتر مشغول كنا قتد يحل لبان يقضي رقمات nin aaba ay daris ahaayeen iyo gabar ka horeyso nolosha maareysay fashilkaaga inaad la aadid waxa 100 jeer iyo 1000 jeer ka fiican salaada subax ka hor hatta hal saac inaad toostid oo Ilaahay ku cagcalaashid oo dhahdi Ilaahayo waa iga cadda waa fashilmay jid ibix annagana hana halmaamine ninkan Zeylac u soo dhaaranayna habaar ninka Zeylac u soo dhaaranaya oo aan nin ulaanahay nin waxa la yiri maxaa dekad u bixisay dekad ma bixinine meel dhul ahaan saldhig military ka siiyay dekad ma bixinin dhulan siiyo ninka askari siisay meel uu degi lahaa maxaa u dhiman inuu badda cas intaan la gaarin badweynta Hindiya ka horeysa
gacanka cadmeeda ku xiga taariikhda iyo juqraafiga waa iga badisaan kadib dhuuntii dhaladaa ku xigta oo badda cas iyo Mediterranean-ka looga sii gudbay qofka meeshaas fariista baabulmandabna asaa gacanta ku haya xaramkana asaa gacanta ku haya dalalka ku teedsan biyahaas afarta ana asaa gacanta ku haya taariikhdiisana waa taqaanaan على آخر ساعة ماشي أكون ضمبين دونتو كعبدا اللي قدو من دوننا واتقانان قفكي دقي سنة يا عبد الحي ياخذ بجمعوين كيسي قدام بي لا بس صدق تاخذ بجمعة كهر تاريخ ذي يا جغرافي كي بويس حتى يدبوا دقيستا هذا أدير ربتي أنا سوشيال ميديا برها بولشيد كم مشغول شيد لحسة على تضبط ساعات نن ولحسة على تضبط ساعات كم مشغول سي هاي سيدو عالم الإسلام ودان أقبسن لها والنوع نصيب درون هايسا waxay ugu soo noqnoqda oo ula yaaba ilbiriqsi kasta oo waqtigayga ku soo noqnoqda oo aan rabi lahayn in ku soo noqnoqoto sababta qofka reer Turki oo mashquulka ugu yahay in qarnigan koo iyo labaatanaad uu yahay qarnigii Turkida in hal qarni imtixaan ku soo jireen waxbay barteen qarnigoodii waa qofka reer Mareykan wuxuu mashquul ku yahay afartii sano Trump uu joogo wixii ka lumay inay soo cishtaan oo Mareykan dambe dib u noqonin oo adduunka hagaan qofka reer Filistiin wuxuu mashquul ku yahay yahuud inuu qariidada adduunka dib uga tiro dhulkiisa dib u qabsado maxaa adiga federaal ku dabageliyay maxaa 4.5 ku dabageliyay maxaa biisa iyo gabar islaameed ina casho soo siisid walaashaan guriga ay joogto maxaa ku dabageliyay waxa qabato kala weey waxa qabatid oo kala ma weeyday ma duwayn guur waa la baneeyay waa xalaal haasawa xalaalaha rabaa in la haasawo gabadha reerkooda loogu tago oo halkaas la fariisto oo waxa isu sheegaysaan aan la maqlin laakiin lidan arko ina wada hadlaysaan la tuunsan soo doon dada ku tiiriya tacabeelay oo hooyada juhdi ku dhumeysay u xulan lahaayeen hooyo wanaagsan oo ayada juhdi ku bixiyay oo wax baray oo tarbiyay sidaas si la midan gabdhaha ayagana ula hadlaaya waa la mid in wiil u raacdid hadda waxa yimid barihi bulshada oo qilwadii islaamka oo mamnuucay gabadho qolka jiifka ku jirta inuu wiilka la joogo asagana qolkiisa jiifka u joogo wali qoorta itus lugtaada itus indhahaga itus nin raba qoortaada inuu arko guur ka hor ma ilaahay idinku dhaariyay guur diyaar ka yahay kama adinkana been ha isu sheegina annagana jiilkan ha naga luminina zeylac hal aado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh